السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal mid ka mida boqorradii hore ayaa wuxuu maqlay suuqa in gabar lagu iibinayo addoon ah qiimaheeduna uu aad u tiro badan yahay oo 100 gabdhood qiimaha la siisto ama addoomo qiimaha la siisto gabadhaas ama jaariyadaas qiimaheedu uu aad ka qaaliga u yahay. boqorkii ciidamuu diray ama dadkii ka agdhowaa qaar ayuu u diray suuq siday ugu keenaan gabadhaas si uu u arko waxay uga duwan tahay oo uga qaalisan tahay gabdhaha kale. markii la keenay hortiisaa la istaajiyey markaasuu wuxuu weydiiyey ninkii boqorka ahaa, gabadhii qiimahaadu muxuu qaali u noqday oo sicirkaadu u sarreeyaa gabar yahay? waxay ku jawaabtay, anigu bay tidhi waxaan uga duwanahay gabdhaha kale xagga xasuusta iyo maskaxda iyo caqliga, oo xasuustayda iyo fahamkaygaa sarreeya, gabar caqli miiranna waan ahay bay tidhi. ninkii boqorka hadalkeedu ayuu la yaabay markaasuu wuxuu weydiiyey su'aalo oo wuxuu yidhi, su'aalahaas haddaad iiga jawaabtid waan ku xoraynayaa oo maanta laga bilaabo addoon ahaan mayse. haddaadan laakiin su'aalahaasi ka jawaabin waan ku dilayaa. soo dhowow way u soo dhowaatay, su'aaluhu ayuu weydiiyey. ii sheeg marada maryaha ugu quruxda badan, carafta tan ugu carafsanna ii sheeg, cuntada tan ugu macaanna ii sheeg, gogasha tan ugu raaxada badanna ii sheeg, meel la dego iyo waddanna kan ugu quruxda badan ii sheeg. gabadhii su'aashaa markii la weydiiyey dhinacyada ayay fiirisay, dadkii meesha joogay ayay eegtay. markaasee waxay tidhi, waxaad ii keentaan alaab iyo fardo, qasrigan iyo madaxtooyadan waa iskaga baxayaaye anoo xore. yacni su'aalahaasi waa su'aalo basiida, waa ka jawaabi doonaaye faras iyo alaab ii keena bay tidhi, anoo xoraan meeshaan ka bixi doonaaye. su'aalihii iyadoo ka jawaabaysa waxay tidhi, marada maryaha ugu quruxda badan waa qamiis ama waa maro uu sito qofka faqiirka ah ee keligiis nool, kaasoon haysan wax aan maradaas ahayn ama qamiiska ahayn. maradaasuu isku hallaynayaa qabowga iyo jiidaalkaba. maro taasaa u quruxsan, maro aad isku hallaysid oo aad aaminsan tahay oo aadan qooraansanayn maryaha kale ee dadku wataan. idan naftaada maryahay wadato aamin, maradaasaa ugu qurux badan maryaha bay tiri. amaa bay tiri carafta tan ugu carafta badan waxa weeye waa carafta iyo udugga hooyada ka soo baxa. hooyo carafteed ama udugga ka soo baxaya mid la siistoo la qiimaa ma jiro. xataa bay tiri hooyada hadday jikada ku jirto ama ay dab shidayso ama meelaha wax lagu shiido ay joogto, carafta iyo udugga ka soo baxaya midna ooma dhigma bay tiri. marka carafta tan ugu caraf badan waa carafta iyo udugga hooyada. hooyo macaan carafta ka soo baxda, caraf loo dhiga ma jirto. amaa cuntada cuntooyinka ugu macaan waa cuntada gaajo iyo baahi ay kuu qabato oo markaad baahantahay aad cunaysid. idan calool baahan ma kala taqaan cuntadaanaa xun iyo middaanaa fiican. marka cuntada ugu macaan waa cuntadaad u cunaysid baahi darteed. sababtoo ah bay tidhi qofka baahan muufada qallaylka ah inay macaan tahay oo dabacsan tahay ayuu u arkaa. gogasha midda ugu qabow waxaa weeye waa midda aad ku seexatid qalbigaada iyo jidhkaadoo deggan. haddaad mid daalima tahay, gogashaad ku huradid waxaad u arkaysaa qodax iyo biro kaa hooseeya inay tahay. kulladii maysid haddaad daalim tahay gogashu markay kuu macaan tahay waa markaaad ku seexanaysid qalbigaadana uu raaxaysanayo oo uu deggan yahay, qofna aada dulmin. kadib intaa markay maraysa way iska baxday, xagga albaabka ayay aaday oo inay baxda ayay damacday. boqorkii baa la hadlay oo u yeedhay. markaasuu wuxuu yidhi, su'aashay ugu dambaysay igamaada jawaabin. way soo fiirisay oo waxay tidhi, beled iyo waddankan ugu qurux badan ama ugu macaan waxa weeye waa waddanka xorta ah. waddanka xorta ahaa waa kee? waa waddanka aysa xukumayn dadkiisa jaahiliinta ah, waddanka aysa xukumayn, waddankaasaa xor ah. laakiin bay tidhi waddan ugu liita oo waddankay xukumaan jaahiliintu iyo kuwa cilmiga iyo aqoonta ee caqliga lahayn. jaahilku marka xorriyad ku siin mayo ayay tidhi. boqorka wuxuu yidhi, su'aalihii waad ka jawaabtay, kadibna wuxuu siiyey xorriyad. ujeeddada aan qisadan u soo qaadanayna waxaa weeye
waddanka ay jaahiliintu xukumayaan waddan xora ma ahan waddan dib u dhac iyo dagaalla ay aafaynayaan weeye run bay sheegtay beledka buldaanta ugu qurux badan waa waddanka ayse jaahiliintu xukumayn laakiin musiibada iyo baroortu markay u imaanayso dalka waxa weeye markay xukumayaan dadka jaahiliinta ah daalimkii markuu wuxuu noqonayaa mid madaxa oo la hormariyo mandiqadii iyo dalkiina waxaa asiibaya dhammaan jahli ilaan waxa madax ku ah waa jaahiliin xorriyaddana waad waayaysaa idan qisadan maxaan ka faa'iidaynaa qisadan waxaan ka faa'iidaynaa xorriyaddu ahmiyadday leedahay waddanka ahmiyaddu leeyahay dadka munaasabku ah inay madax ka noqdaanna ahmiyadda ay u leeyihiin dalkaas midda kale weeye cuntada markaad cunaysid waa cunto baahi kuu qabata ha iska daba keenin cuntooyinka maxaa yeelay kuwa walaalaha oo baahan baa jira markay baahida cuntada kuu qabato wax ka kabo maxaa yeelay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa cunto ugu fiican mid yaroo dhabarkaada toosisa oo cibaadadaada iyo adduunyadaada kugu kaalmaysa laakiin labaliqan iyo boqolaalkan jeer dadku wada cunayaan cudurradan iyo ta'akhurkan iyo dadka inay isku beddelaan kuwa aan wax garanayn waa cuntada noocaas loo cunayo ama sidaa loo cunayaa keenaysa qisadu marka faa'iidada ugu dambaysa aan ka faa'iidayna waxaa weeye wax kastoo adduunyadaadan ku saabsan ha ka badbadin inta kugu filan ka qaado waxaanan isleeyahay gabadhaan inay tahay tii gabdhaha ugu caqliga badnayd uguna maskax badan waxaana taa ka dareemaysaa jawaabaha ay siisay ninka boqorka ah idan caqliga iyo maskaxda iyo garaadka lagu kala qiimo badan yahay ee qurux iyo nasab gooniyo la sheegto iyo laandheerannimo lagu faaniyo xoolo waxba kuu qaban mayaan haddaa qof baliida tahay aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu